السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. كل وناكسن ميل والبواد جوكتان كسو دوادا برامج كان oo la xiriira barnaamijyada arrimaha bulshada ee halkan aan idin ku soo gudbin. barnaamijkan si gooni ah waxaan diiradda ugu saari doonaa dhacdo aad u xanuun badan oo ka dhacday magaalada Wajeer ee ismaamulka Wajeer. sida aad u jeedaan dadkan shacabka ah ee halkan isugu yimid iyo laamaha amniga ee dhex taagan intuba waxa ay u yimaadeen dhacdo fool xun oo loogu yeeray saldhigga jiifka ama gudoomiyaha xaafadda ay dhacdadani ka dhacday kadibna laamaha amniga uu soo kaxaystay ayna isugu yimaadeen halkan. waxaa loo sheegay wiil maalmo ka hor xabsiga laga soo daayay oo la yiraahdo Cabdifataax Maxamed in uu hooyadiis dilay ama hooyadii uu qudha ka jaray baangadna uu dhowr jeer luqunta kaga celceliyay kadibna ay hooyadii sidaas ku dhimatay. waxaas wiilkani uu ahaa maalmo ka hor mid xabsi laga soo daayay ama bil ka hor kadib markii uu qof xaafadaas ay dilay mid kale tan uu dhaawacay sida uu jiifka xaafadda uu sheegayo ama uu ku waramay. waxa kale oo xogaha aan helayna ay sheegayaan in hooyadani kaalin weyn ka qaadatay wiilkeedu sidii uu xabsiga uga soo bixi lahaa. labada qoys ee wiilkii uu dilay iyo wiilkeeda Cabdifataax Maxamed ay isu fahmi lahaayeen diyana loo kala qaadan lahaa halkaasna wiilkeedu uu xabsiga uga soo bixi lahaa. laakiin bil kadib iyadii ayuu xakawda ka jaray oo uu dilay. arrintan oo noqotay mid aad u fool xun waa dareemi kartaa waalid ilmihiisa dadaal ugu jiray sidii uu nolosha uu ku jiro uga bixi lahaa kadibna xabsi ka soo daayay haddana isagii uu hooyadii xakawda ka gooyay. waxaa kale oo dadka qaarkood ay sheegayaan ama wararka kale la sheegaya kamida baangada uu hooyadii ku dilay lafteeda inay dad isla xaafadda ama eheladii ay u iibiyeen inkastoo xogtaas aanan anagu xaqiijin karin. laakiin waxyaabaha ay dadkii munaasabadan ama meeshan isugu yimid ay dhacdada foosha xun ka dhacday ka hadlayeen ayay kamid ahayd. walina laamaha amniga ayaa baaritaano arrintaasi ku wada. wiilka dadkii shacabka ah ayaa markiiba qabtay saldhigga ayaana loo taxaabay. balse marka hore aan bal dhageysano jiifka xaafadda oo ka waramaya sida ay dhacdada u dhacday iyo wixii ka horeeyay inta. jiifka Ali Macow Maxamed Xasan deegaankan jiifka maanta 5 saac bar markaan joogno magaalada anagoo shaqo ku jirno ayay dadkii xaafadana soo waceen. waxaan nagu soo wargeli yar Cabdifataax Maxamed la dhaha inaan hooyadiis qorta baangada ugu dhuftay. meeshii markaan askar ka soo qaatay meeshii aan imaadni maamada iyo meydaan u imaadni dhaawacyo badan oo qorti iyo ilaa iyo dhuntayda almaartii aan baangada ugu kala jaraan aragni. maamada hadda meyd waaye markaan hadda wixii ka dambeeyana duugtii wixii aan soo diyaarinayna. markaan ninkan waa ninkii sanadkii hore maartii yarna dilay dadna ku dhaawacay buulada oo mar dhow jeelka laga soo daayay. waa la qabtay dadkii adii dadweyneena xogo nabray gaasiyeen laakiin hadda saldhigga la geeyo sugan ilaa isbitaal. runtii arrintan marka aan fiirino in xaaladani ay tahay bil ka hor tulamida tan inay dhacday ama bilo ka hor ninkan oo geystay dil lamida midkan oo kaleeto isla xaafadana ka geystay inay hooyadii bil ka hor soo daysay kadib markii ay xabsiga ka soo daysay bil oo dadaal muddo badan qaatay ku bixisay dhaqaale oo helida diyasiinta dadkii uu wiilka ka dilay iyo kii dhaawacmay intaba ayuu iyadii xakawda dhaafiyay. dhacdadan waxa uu ninkan u samaynayaa sida ay xoguhu sheegayaan waxa uu ka mid yahay dhalinyarada daraagiska qabitantay. taas ayaana ku kaliftay baa la leeyahay wiilkani in uu hooyadiis xakawda u dhaafiyo. laamaha amniga ee xaafadda oo uu horkacayo jiifka xaafadaasi oo soo gaaray goobta ayaa meydkii goobta ka qaaday. sida caadiga ah wadankan Kenya ee dawladda ama sharcigu waxa uu yahay qofka meydka ah hadii uusan qofkaasi ahayn qof si caadi ah isooga dhintay uu qofku yahay qof dil iyo dhibaato u dhintay ama aan laba garanaynin waxa uu dhintay inta badan dadku uma dhawaadaan way iska ilaaliyaan. sababtuna waxa ay tahay in laamaha amnigu ay ku soo raacan karaan ama lagu soo daba raaci karo arrinta la xiriirta dilkan oo lagu qabsan karo ama lagu weydiin karo ama wax laga weydiin karo ama xitaa aad maxkamad u mudan karto. sidaas darteed laamaha amniga ayaa la wargeliyaa. kolkii laamaha amniga la wargeliyo iyaga ayaa goobta imanaya meydka ayay qaadayaan isbitaal ayay geenayaan
isbitaalkaas iyo waxa weeye xarunta muujiriga halkaas la geenaya inta baaritaanka iyo hawshaas socoto dawladda ayaa gacanta ku haynaysa haddii dadka bulshada ah ee wax garatada ama wax dadka oo dheergaradka ama mas'uuliyiinta ah ee xaafadaas ama odayaal ha noqdaan ama jiif ha noqdaan ama siyaasiyiin kale oo matala ha noqdaan aysan iyagu arrinta kolkaas soo dhaxgelin oo aysan dhihin hawshani waa hawl family annaga ayaa dhamaysanayna xitaa haddii dilalka oo kale Kenya waxaa la ogol yahay qofku markuu qof dilo in haddii labada eelay dhahaan annaga dhamaysanayna dawladda Kenya way u ogoshahay oo way soo dhamaysanayaan haddii uusan kolkaas dilkani ahayn dil dhinaca dawladda la xiriiray uu yahay dad shacab ah oo caadi ah oo dilku u dhexdooda ka dhacay laakiin dhacdadani waxa ay noqonaysaa mid aad iyo aad u foolxun marka aad fiiriso hooyo toddobaadyo ama bil ka hor dadaal aad u badan bixinaysay si uu wiilkeedu xabsiga uga soo baxo dhaqaale ururin nooc kastana isku dayday iyo sidii labadii ehel ee wiilkeedu uu dilay wiilkii uu dilay ehelkiisa iyo ehelka wiilkan intay isfahmaan hawsha loo dhamayn lahaa maantana wiilkeedii bil kadib uu isagii dilay waxa uu isku day inuu goobta ka baxsado laakiin dadka shacabka ayaa soo qabtay isaga laftiisa sida uu jiifku sheegay dhaawacyo ayaa la gaarsiiyay laakiin laamaha amniga ayaa gacanta ku haya dhacdooyinka noocan oo kaleeto aha bulshada Soomaaliyeed aad bay ugu badan yihiin waayadan nin xaaskiisa gowracay haweenayadu ninkeedii gowracday nin xaaskiisii gubay qof miskiin ah oo aan waxba galabsan xabad iskaga dhuftay oo xabad iskaga furay dadka noocan aha dilalka noocan ee bulshadu awal horeeto ma aysan bulshadu sidan ahayn wax kale tan ma ahe waxa weeye dadku markii ay xad gudubaan oo waxyaabihii Ilaahay u abuuray ay ka gudbaan ay dhibaatooyinka noocan oo kale ta yimaadaan bulshada Soomaaliyeed marka meel kasto ay joogto dhacdooyin maalin walba la yaab leh naxdin leh ayaa soo baxay awal hore way ay yarayd waliba dhacdooyinka waalid ilmihiisa dilay ama waalidkiis dilaya labadaasi aad bay u badan yihiin hadda oo waxaan aragnay waalidiin ilmahoodii dilaya oo soo batay oo aad waliba u badan waxaan aragnay caruur waalidkood dilaysa oo iyadana aad ugu badan deegaanada Soomaalida arrimahaasi oo dhani waxay u baahan yihiin ka fiirsi iyo sidii bulshada looga wacyi gelin lahaa dhacdooyinka noocaasi oo kale ah ee soo noqnoqonaya bulshadana saameynta ku yeelanaya tusaale ahaan marka aad fiiriso dhacdooyinku laba qof oo caadi ah oo isdishay tusaale ahaan haddaan soo qaadano inkastoo dilku mar walba mamnuuc yahay tiirka la isu geenayaa oo iska dhib yartahay laakiin waalid ilmihiisii dilay looma maxkamadayn karo iyagii waalidkii baa laga yaabaa inay u kala cuqdadoobaan isagii bay cudur iyo xanuun ku noqonaysaa ilaa ilmihiisii u dilay ilmihiisa kaleeto ayaa laga yaabaa inay caqabad iyo dhibaato ku noqoto sidaas la mid aha waalidkii dilay iyadana waa dareemi kartaa xanuunka iyo dhibaatada iyo caqabada ay leedahay xitaa hadduu noolaado noloshiisii waalidkaaba dishay baa daba taagnaanaysa marka waa arrin iyada lafteedu aad u foolxun marka si guud bulshadu waxaa loo baahan yahay in dadka arrimaha bulshada ka shaqeeya oo ay ugu horeeyaan culimadu bal dadka kale yeelkadooda ee dadka culimada ah indhaha bulshada ee diinta wanaagsan xambaarsan in ay dadka wacyi geliyaan ay dadka wax u sheegaan qofku hadii uu diin leeyahay iimaan buu leeyahay qofku hadii uu iimaan leeyahayna waxyaabaha qaar kood marna kama dhici karaan sidaas darteed baa waxa loo baahan yahay bulshadu in ay dib isugu noqoto oo caqabadahan faraha badan ee noocan ay bulshada soo wajahay meelaha ay naga imanayaan in la isweydiiyo kadibna laga hortago oo sidii bulshada dhexdeeda looga ilaalin lahaa la sameeyo waxa kale to dadka daraagiska qabatamay ama xanuunsan oo dhimirkooda loo yahay inuu xanuunsan yahay ama waxyaabaha noocan oo kale ta ka dhici karaan ma aha in bulshada lagu sii daayo hadda wiilkan oo kale to hooyadii xanuun hooyanimo ahayay dadaal bay samaysay isaga wiil buu dilay ku kala dhaawacay isla xaafadda sida uu jiifku ku waramay waad maqlayseen kadibna bil ka hor baa la soo daayo hawshaasi la dhameeyay haddana maanta iyadii ayuu dilay in waalidiinta laftoodu aysan beerka kaliya uusan qaadin waxa uu soo jiidi karo ee dhibaatada ah oo ay kamid tahay tan maanta dhacday oo kaleeto inay iyagana ka fiirsadaan waa muhiim ilmuhuna inta uu yar yahay baa in la barbaariyo oo dhaqankiisa la wanaajiyo yuu ku fiican yahay taasina waxay ka bilaabanaysaa doorashada hooyada iyo doorashada aabaha
ayay ka bilaabanaysaa iyo waliba sida labadaasi qof aragti ahaan ay u yihiin kuwa bulsho dhisi kara ilaa waxa loo baahan yahay hooyadii aabuhu waa dadkii ubadka keenayay ama warshadii wax soo saarka ee bulshada dadka ku soo biirinaysay marka ilmaha aad dunida ku soo biirinayso hadii aadan hooyadii ka taxadarin hooyadiina aabihii ayna ka taxadarin markay labadoodu isu yimaadaan dulqaad iyo isu tanaasul intay sameeyaan sidii uu ilmahani ku wanaagsan lahaa mid ummadda anfaca isaguna noloshiisa iyo naftiisa iyo diintiisa anfaco u noqon lahaa hadayna ka shaqaynin tan oo kale taa dhacaysa marka waxaan u baahanahay in bulshadeenu ay wax ka qabato oo laga hortago tan iyo kulanti dambe waad mahadsantihiin